keedii meeshaan doonta joogna waa qaybtan Nexom wadada ah sectionka buurta ah oo buurta dhakada ka soo bilaabmaya ilaa qaybteeda hoose sectionka buurta waxa weeye 900 mitir celcelis kiis هذا إسلوفكيد waxa weeye 4% maximum meelaha ugu dheer oo iyadoo hadda wadada balliceedu 12 mitir yahay garaaceedii iyo biyaheedina waa ku dhameystiran yihiin kaliya wax waray dhinacyada hadda in drainage-ka iyo isloofyada loo sameeyo iyo maartay biyo dhaca si aysan wadada hadda saameyn ugu yeelan qaybtii kale wadadana way noo dhimantahay dhanka togaga ah oo iyadana 5 kilomitir iyo 300 celcelis mitir ah oo iyadana meelaha streamiska iyo maartay isloofyada ay la saxayo la hagaajinayo dhammaan teamka dawladda hoose ama real estate Nexom injineerada dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaad bay noo tahay maanta inaan halkaan joogno oo ah wadadan oo laga shaqeynayay muddadan shaqadeeda socotay loona diyaarinayay inay noqoto wada la isticmaali karo bulshada iyo mashruucan halkaan laga wado korontada loo isticmaali karo inuu maanta meel fiican marayo farxad fiican bay noo tahay shaqadan meel wanaagsan bay maraysaa wadadan waa ilaa 6.3 kilomitir laga shaqeynayay oo shaqo fiican laga qabanayay si loo isticmaalo oo bulshada iyo kambaniyada halkaan shaqada ka wada iyo shaqooyinka korontada oo magaalada loo wado lagu horumarinayaba ay u isticmaalaan waxaan rajaynaynaa inay gabagabowdo injineeradii dawladda hoosana supervision-kooda iyo shaqadooda waa wataan team oo ayada shaqadan fulinaysay waa joogan goobta iyo Nexom oo loo fulinayay oo wadadan mashruucan lagu talagalay in korontada bulshada loo raqiisinayo lagu sii fududeeyo waxaan rajaynaynaa successful inuu noqdo lagu guuleysto wadadana ay si fiican u guuleysto mashruucan uu noqdo mashruuc miro dhalay magaalada caasimadda ee Garowe ay ka faa'iiday